بسم الله الرحمن الرحيم. وتماتا ومالين تاريخ وسديد بشا ديسمبر لبدا كون iyo 23 maanta waxa sii dhamaanaya sanad guuradii 4 tan iyo markii ay bilaabeen khiyaarka socdaalku socodka maanta waxa joognaa dinaqa waxay ka mid tahay dhulkan aadka u qurux badan ee biyaha leh waxaan xasuustaa iyada oo dadka qaarkood markay biyaha soo iloobaan cagada biyaha ee bareega ay halkan ka cabeen marka ceelasha imka cabsho iyo kalena waa inta badan wax la samayn jiray wala si qeyn jiray wala lagu weesaysan jiray marka maanta horta aad iyo aad baan habnahay oo faraxsanahay waxaan soo soconay 14 kiiloomitir marka imka buurta lagu daro ee dib loo noqdo gaar waa soo wareegnay buurtan lagu daro dhabi feedcad waxaan rajaynayaa inay noqon doonto ilaa 18 kiiloomitir haddii ilaa magaaladii lagu noqdona ilaa 20 kiiloomitir marka runtii socodkani islaan mar walba ka dhawaajino waa socod aad u qaaliya faa'iidadiisa iyo wanaagiisana waxa garanaya uu qofka wada marka ragnada way sii daayiraanayaan caafimaad badan bay keenayaan ragna markay jilbaha iska laabteen waxba qaban waayeen way wada cuslaadeen markaad aad ugu fiirsatana raaxada shayga la yiraahdo ama nasiimaha nafta iyo maskaxda iyo jirka waa u dhakhtarba yihiin laakiin waxaan arkay khibradu leeyahay ma sheegaya sababtu waxa weeyaan waan ka sii horreeyay qolooyinka socdaal waxaan bilaabay 2000 sheegi maayo iyo 3 oo taasnay sameeyay socdaal faa'iido badan baan ku hayaa marka waxaasoo dhan waxay ku jiraan nafta marka la dhibo ay jimicsi iyo kulay iyo qabow iyo waxba hurdadaada isbedelaysa cuntadaada isbedelaysa caafimaadna waa dareemaysaa marka waxaan kusoo gabagabeynayaa waxa wax ilaahay lagu xamdiyo ilaahay baana mahadnaale waayo intaasoo qof baa dhakhtarada jiifa maanta socod iyo waxba keli karin horta waxa la ilaaha caafiyo tan labaadna qolooyinkeena socda iyo inta xiisaynaysa waan u ducaynaynaa in iyaguna nagu soo biraan innagana ilaahay noo raajiyo walaalkayna aad baan u salaamayaa inaga duubaya dhammaantii dawad maasintii salaamu calaykum